waxaa kaloo la sheegay iyadana haweeney kaloo Soomaali ah oo la yiraahdo Margaret Abdul iyo gabdhaheeda ayaa kaniisad ku taala Dixon iyo St Philips ay yimaadaan groupka Soomaalida waxa idinkaga yimid xaafada St Philips duqyaala iyo Dixon inta kaniisad ku taala imaadana leeyahay inta noogu taalo kuwa Soomaalida ma yimaadaan ma arkin aniga ma arkin daarka garaac ilahay kuwaasan deeylahayba qof Soomaali oo dhahay diinta Kirishtaanka soo gala wacdul iga fakadeen waxa la yiraahdaa Margaret Abdul lacalla haday meerida yimaadaan iska yiraahdo wada islaantan marka cadaanka ah oo hoosta degan magac Soomaaliya la baxday Faaduma la dhahaa ninkeeda naaga Soomaaliyeed qaxootiga ku qabaa oo halkaas uu degan yahayba asaga wixii gaalnimo lagu keenay iyo wixii kale dad badan wax la sheegaa gaalnimo lagu keeno jalaabibna waa sitaa bahashin waa u xiran tahay Hamilton iyo Kitchener waa laga sheegay laakiin anagu ma arkin indhaheygana ma basaarin laakiin dadku saasi dadka badanaa Kitchener iyo Hamilton la keeno kulli waxa lagu keenaa Kirishtaannimo